meeshaan diinan ku hayna maana dan kale kuma hay waxaa fidana haddeer ka hor maana heli dhowr sano horta meesha qoraxdaas aan wax ku dhigayn shiri khayrad ilaahu rabbiyow waa khayran nooga soo keen qaada haddeera u dhibaatoonnahay 6 sano acuudu billaahi min xamar ma taqaan 8 ku hayda meesha la yidhaah aad 4 ku hayda meesha la yidhaahdo adag kibir 5 iyo 6 joogta baxdo 5 iyo 6 joogta adaado 4 nima baadigiisaas haynaajo meel waddankaana oo aan macallima qora dhigo uu ku yar uusan joogin lama arko waa badanta iyo halkaas iyo intaas 2 macallima joogta ummadda maxaa marka u codsanaysaa u sheegaysaa agarkase waxaan codsaday qoraxdaasaan taaganahay waxaan ka codsanay in wax naloo dhiso oo naloo gargaaro yaa aan codsowna halkan waxaan baaq uga dirinaa dadka muslimiinta oo wax la baxa inay dugsigaas noo dhisaan qarqariyada qabowga kitaabo xataa waa naga qoyaan looxdu waa naga mayrantaa xilliga roobaadka wax ma dhiga karno waayo looxdii naga qoyaysa marka dugsigaasaan waxaan rabnaa dadka muslimiinta oo ilaahay wax siiyey inay noo dhisaan sidaas weeye marka waxaan ku darayaa dadkii muuqeena iyo maqalkeena garanaya oo hadda ka hor wax ku soo bartay ama aan wax soo barnay ama aabbo wax soo baray waxaan rabnaa iyagana wixii ilaahay wax siiyey inay ku darsadaan waa dugsigoodii quraankii la baraya ka socda marka waxaan rabnaa in dugsigaas nala kaabo wax nagala qabtaan marka intaas weeye cabashadeenu dugsigan dadka bartaa 50 arday waaye haddeer waxaa kaloo jira hooyooyin aan xilliga galabtii oo kale wax baro ayaguna ma yara waa ka badan yihiin marka ayagaasna waxay rabaan meelay wax ku bartaan oo ayaguna sidoo kale wax xafidan marka waxaan codsanaynaa in intaas nala kala qabto meeshaan horta waa dugsi quraan wax badan u dhisnaa meeshaas dhabarkayga waa laga soo fujiyey meeshaas waa laga fujiyey meesha waa laga fujiyey intaasna waxa lagu dhiganayay geedka cadaadka iyo laan la soo jaray iyo qorax baa lagu dhiganayay culmaan lama hayde waxaan haye dhisma la'aan wixii wax noo dhisi lahaayeen weynay hantidanaduna waa noo saamixi weyday inaan dhisno waxaan codsanaynaa dugsiga in loo dhiso dadkan aad u jeedaan geedkaas hadee dhabarkaaga ka muuqda gabdhaha la geeyaaho wax ku dhigta masaajidka geedku ag yaala ragga dhabarkayga taagan ayaa la geeyaa meeshaan waa meeshii ardada meel dhisanna male oo meel xafidan iyo meel dhisan iyo meel kutub la dhigi karana waxaa laga arkaa meeshaas masaajidka u dhow hadda waxaan codsanaynaa in wax nala kala qabto dugsigaas dugsigu waa dhowr dugsi dad waaweyn dad dumara dad yaryar intaasaa meesha lagu joogaa waxaan codsanaynaa in naloo dhiso dugsigii aan wax ku bararahayn rag iyo dumar qof yar iyo qof weyn oon ilaahayna ugu dhawaalahayn adduunkana aan ku calafsa lahayn waxaan doonaynaa wixii islaana waxaan islaanahayn annaga wax kama rabno waxaan rabbiyahayna wax kama rabno waxaan doonaynaa wixii ilaahayna ka baqaaya haddii alla kuuraan dhibaatadana ay xanuujinayso inay wax nagala qabtaan dugsigaas oo dugsida wax nagala qabtaan noo dhisaan hoosna hariyaan kutubada noo koriyaan waxaan rabnaa in wax naloo qabto waxaa weeye dugsigan meesha la isugu yimid 26 sano yaa dugsiga koobaad muddo laga joogaa laga dhisa meesha laga sameeyo macallinku uu soo degay intii ka dambaysana kii afaraad weeye kan dadkiis waa dareer waxaan rabnaa dadka dugsida iyo meelaha maaragtay cibaadada wax u qabta waxaan ka rabnaa inay dugsigaas noo dhisaan ardadu waxa weeye ma yara ilaa waxay gaarayaan 50 ilaa 60
meel la harsadana waa la la'yahay qorax iyo roob intaba waa meeshan waa maaragtay ku dhibaataysan tahay waxaan rabnaa in dugsigaas si degdeg ah lagu dhiso waxaa intaas weliya dugsigan dugsi cusub maahan waa dugsi soo dhisnay ugu yaraan 75 sano oo baadiyaha lagu dhigi jiray haddana la keenay deegaanka Shilanweyne oo adeegkiisa u dhaxeeya iyo dhagax dheer waxa weeye deegaan ballaaran ku yaal dugsigaas wuxuu u baahan yahay waxqabad u baahan yahay kaas hoostiisa loogu dhigayay 26 sano anaga dugsigan markii uu soo gaaray deegaanka Shilanweyne culimada diinigu inta islaamnimada Ilaahay wax ku bixiyo inay noogu deeqaan meel aan wax ku baranno